soo baxaani oo ahaa mid lagu taageerayay wasiirka amniga maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur kaasi oo 31 Agoosto 2019 ee dowladda federaalka Soomaaliya ka qabsatay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho asagoona sida la sheegay ku sii jeeday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya balse waxa uu gacanta dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka ka baxsaday 5 bilood kadib 28 bishan 2020 waxaana maanta gaaray magaalada Kismaayo ururka haweenka oo qayb ka ah banaanbixii maanta lagu taageerayay xorriyadda wasiirka amniga maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo dib u helay ayaa dareenkooda iga waramay ilaahay baa mahad dhamaanteed ay u sugnaatay ilaahay nagaasoo noo soo daayay wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur waxaan u mahad celinaynaa dadka Soomaaliyeed oo nagala qayb qaatay in wasiir Cabdirashiid Xasan uu xorriyadiisa dib u helo waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhammaan meel kasta ay joogaan in la iska ilaaliyo dhibaatada dadka bulshada lagu dhaxabuurayo caqabadaha taagan muwaadiniinta xaqalo xasaanada leh oo la iska qabanayo waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed inay cadawgooda ka wada warqabaan waan soo dhaweynaynaa imaashada wasiirka yimid magaalada madaxda hadda ku meel gaarka ee magaalada Kismaayo aad iyo aad baan ugu mahad celinayna waxaan leenahay hambalyo الله وين واحد كاي ما ذو سجن تهاي سيرك نجي أمني جو شرفت لها الجماعة تاريخ ذا وين كلها يجانا ذا أنا كسر عندنا قبل كذا خاصة دعوة والدولة فدرال كاسي أفضوبة يوجهي ستي مقدشو وحنو مهد علينا الله وين أود له صورة جليي إنه كبد بحاسة والنبضة وحنو مهد علينا سيدي هراء وشفتك دمية أوركها وين كان عبد الله عد الله يعدي كقيب قارتي أرنتاس ويضلك ولا إسلالي هاي ضدكم ووضع الشيء ماشي وحيا لنا والله أركاه وحنو مهد علينا ضدكاس إلهي بانو مهد علينا أصحاب تاس ومهد علينا وسير كأبنجا دولة قبلات Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo taariikhdiisa la yaqaan oo halgamaa oo dogtiin taariikhdiisa aad arkaysaan tayadiisa aad arkaysaan deegamadiisa iyo waxa uu ku fadhiyo dalka anaga iskale cabdiyo ilaahay baa ku soo sidaayay annaguna waa ku faraxsanahay intaan xirnayna waa kula xirnayn intaan murugootay waa murugoonaynay intaan oo ilaahay bay u xisaaban tahay haddana allah weyna awood lahaan mahad celinayna alxamdulilaahi rabbil caalamiin halkan kaadira wala ma hilmaama halkan maanta joogtana wala ma hilmaama halkan maanta joogtana wala ma hilmaama ayba Ismaaciil Cabdille maanta farxadanada wax la soo koobi karo ma aha wasiir Cabdirashiid haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Gado waxaan mahad u celinaynaa ilaahaygi noo soo fududeeyay oo wasiir Cabdirashiid nooga soo daayay cadawgaas gacantooda ilaahay baa mahadaas iska leh waxa kale oo mahad u celinaynaa ummadda Soomaaliyeed oo garabka naga taagan oo hiil iyo hooba nala garab taagan oo codka nala garab taagan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxa weeye dadka Soomaaliyeed waa walaalahano waa soo dhaweynaynaa wasiirkanagina wuu noo imaaday ilaahay baa mahadaas iska leh annaga waxa weeye aad iyo aad baan maaragtay xaaladdanadu meel hoos ayay gaartay maanta 5 daqiiqo meesha hoos ilaahay baa naga soo kiciyay meel sare hadda maanta maraysa waxaan leenahay ishii bugtay ku bikaacso waxaan leenahay Cabdirashiid waa kula qaybsana xanuunka شنو هنكاجي والله ما الماما Jubbaland israacda ya joogsada colaadihi min kana jarbanaay halka aanu jeednana waa wada jirkeene halka aanu jeednana waa wada jirkeene wax jilaafa noo dhiga naga jira cadaawaha wax jilaafa noo dhiga naga jira leenahay maxamed sheekh maxamed la fakir warbaahinta Star balad xaw